madaxweynaha dowladda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u magacaabay ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. Wuxuu sheegay in Xamse uu yahay nin aqoon iyo karti u leh xilka uu u magacaabay isaga oo ka codsaday baarlamaanka Soomaaliya inay ansixiyaan ra'iisul wasaaraha cusub si uu u dardargeliyo shaqooyinka horyaalla xukuumadda uu soo dhisi doono. Haddaba waxaan dul istaagaynaa waa kuma Xamse Cabdi Barre. Xamse Cabdi Barre waxa uu ku dhashay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ee koonfurta Soomaaliya ku dhashay horraantii 70-meeyadii. Waxbarashadiisa asaasiga ah ee dugsiga hoose dhexe iyo sare waxa uu ku qaatay gudaha dalka. Jaamacadda heerkeeda koowaad waxa uu ku soo qaatay waddanka Yemen halka shahaadada heerka labaad uu ku soo qaatay jaamacad ku taala dalka Malaysia. Hadda waa xildhibaan ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka ee Soomaaliya ee laga soo doortay Jubbaland. Waxa uu xubin ka yahay xisbiga nabadda iyo horumarinta ee uu hoggaanka u yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kaasoo uu horey uga soo noqday xoghaye. Inkastoo uu shaqooyin kala duwan ka soo qabtay xafiisyada dowladda federaalka ee Soomaaliya, magaciisa waxa uu si weyn u soo shaac baxay markii uu noqday guddoomiyaha guddiga doorashada ee Jubbaland intii u dhaxaysay 2019 ilaa 2020 xilligaas oo uu doorashadii ka dhacday dib loogu doortay madaxweyne Axmed Madoobe. Intii u dhaxaysay 2014 ilaa 2015 waxa uu la taliyay dhinaca maamulka u ahaa guddoomiyihii gobolka Banaadir ahna duqii magaalada Muqdisho ee xilligaas Xasan Maxamed Xuseen Muungaab. Howlaha kale uu Xamse ka soo qabtay waxaa ka mid ahaa in uu la taliyo sare ka soo noqday wasaaradda arrimaha dastuurka iyo federaaleynta.